بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، ولا لها نلا السعودي فديدي هوري نغلا قيب قاتي waxay garanayaan xalaqadani soo socota ama fadhigan inuu yahay kii shanaad. maxaa yeelay mawduuceenu wuxuu ahaa barakada xagee laga helaa. saasaan rabaa inaan idin xusuusiyo. barakada waa waxaan wada raadinayno. haddaad ila xusuusataan fadhigii koowaad waxaan idhi qur'aanka laga helaa. fadhigii labaad bisinka iyo dikriga laga helaa. midka saddexaad waxaa laga helaa sadaqada. kii afraadna waxaa laga helaa qaraabadoo la xiriiriyo. talow barakada shanaad ee aanu doonayno inaanu ka faa'iidaysano maxaad u malanaysaan? التبكير في طلب الرزق. inaad subaxii ka lahdo oo aad shaqo tagto. barako alla ku siinaya. barako alla ku siinaya. waxay shareecadeenu la dagaalamaysaa qofka inuu noqdo qof caajislow ah oo iska jiifa. la subaxii inaad tagto caafimaad baa kugu jira. jirkaaga xataa caafimaad baa ku jira. subaxii inaad ka lahdo waxbarasho u kala, shaqo u kala, xataa haddii aadan midna u kalahaynin jirkaaga soo wareeji. laakiin nabiga u duceeyey sal ly slam, allahuma baarik ummatii fii bukuuriha. ilaahayow ummadayda kallihitaankeeda ilaahu u barakee. arsaaqadda ilaahay markaad raadiso ilaahay baa arsaaqad ku siinaya subxaanahu wa tacaala. barakaa ku jirta. ragga soomaaliyeed waxaan leh mas-uul baa tihiin. ilaahay wuxuu mas-uul idinka dhigay dumar iyo carruur. waxaan rabaa inaan kuu sheego ninka soomaaliyeedo inaad ka lahdo barakaa ku jirta. caafimaad baa kugu jira. inaad ka lahdo carruurtaada tarbiya ugu jirta. tusaalaan ku siinayaa. adaan kula hadlaya si fiican ii dhegayso. dhagaha fur. inaad ka lahdo waxaa ku jirta tarbiya. tarbiyada xagee kaga jirta? ilmahaagu markuu arko aabbihii oo u shaqaynaya, aabbihii oo ka lahaya, goorta uu weynaado asagana wuu ka lahayaa. wiil hadduu ahaa xaas markuu yeesho aabbihii oo ka lahaya oo shaqaynhayuu arki jiray, asna waa ka lahayaa, waa shaqaynayaa. gabadh hadday tahayna oo uu nin guursadana waxay arki jirtay aabbaheedoo shaqaynaya, soo ma aha. haddaba ninkeeda waxay leedahay war maa shaqaysid, li'anna aabbaheedoo shaqaynaya arki jirtay. hadday dhici weydo in carruurta loo shaqayn waayo, waxaa dhici karta iyaguna kuma ixtiraamayaan, xaaskuna kuma qadarinayso. wabitaali tarbiyadana waad ka hadlaysay. oo wiilkii markuu gabadh guursado waa jiifayaa. war maa shaqaysatid? aabbahayba ma shaqaysan jirin buu leh. gabadhii waxay leedahay war maa shaqaysatid? aabbahaba ma shaqaysan jirin buu leh. tarbiya ku jirta inaad ka lahdo. barakana way ku jirtaa. uxibukum fillah. ilaahay daraaddii baa idiin jeclahay. intaanu kaga kulmayno fadhigan midka xigo oo fadhigeenna lixaada, waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.